nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi israa'iil waa la yuhuud baa dagaalamaysaa iyo muslimiin baa la yidhi xaggee lagu dagaalamaya nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa waadiga urdun in lagu dagaalami doono weliba nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa bariya galbeed in la kala fadhiyi doono qolana bariga inay joogi doonto qolana ay galbeed fadhiyi doonto inta halkaa isku dishaan baa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yuhuud la jebin doonaa marka la jebiyaabay weliba dhirtu iyo dhagaxa iyo cid waliba ka warrami doontaa geed mooyaane geedka shajaratu qarqadka la yidhaahdo mooyaane inta kale oo dhamme ay sheegi doonaan idan tanna waa bushaaro labaad oo nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna wuxuu sheegay wacdu laakhira markuu iman doono marka labaad in la baabi'inayo reer banu israa'iil in ilaahay isu soo ururin doono ji'naa bikum lafiifa baa ilaahay leeyahay marka hore waxa la yidhi waqatacnaahum umama kooxa alla ka dhigay israa'iil meel kasta way joogaan dunida alla ku kala daray bay noqdeen laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wacdu laakhira markuu imanayo maxaa la yidhi ji'naa bikum lafiifa waana ilaahay ballan qaaday wayn cudtum cudnaa horaa loo yidhi nusuusta sunnaduna way sheegaysaa iyana inay jabi doonaan baqa kama qabno israa'iil inay jabi doonto iyadan waxba halkan in badan ka tallaabin maraykan inuu jabi doono waa xaqiiqo jirta waayo raashaa jabay oo ka xoog badnaa cidi taariikhda bini aadamka may sii odorosin raashiya 10 sano ku baabi'i doonta laakiin waxaan leenahay waxaan oo dhami waxay sheegayaan mustaqbal inuu soo socdo waxaynu nidhi taariikhdu ma la daraasaya taariikhda waxa dib ugu noqotaana ilaahay baa quraanka wuxuu ku yidhi inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum ilaahay fir'aun buu ka warramo waxa la yidhi dunidu ku qooqo uu kibirka fir'aun markii alla sheegay waxa la yidhi sababtuna waxay ahayd yastad'ifu ta'ifa dadka wuxuu ka dhigay shiic baa la yidhi kooxo muslimku hadduu muslim noqon lahaa dee ma jabeen laakiin waxay kala noqdeen soomaali iyo somaliland iyo maxay yaman iyo sacuudi iyo masaari iyo turki iyo afghanistan iyo bakistan baa laga dhigay kooxa laga dhigay waa falsafadii fircoon divide and rule ingiriiska ma iman waa ancient philosophers waxay rumaysnaayeen waa wuxuu rumaysnaa fircoon dadka xukumayay waa divide and rule nin kasta oo raba inuu dadka dulmiyaana halka uu ka bilaabaa waxa weeyaan shacabka inaad qaybiso waayo shacabku hadduu wada jiro dee ma dulmiyi kartid oo ku tuuraya haddaad aragto dictator meel fadhiya haddana dulmi wada wuxuunbuu suurtageliyey dadkan un baan isku xidhnayn hadday dadku mid yihiin daalimba ma xukumi karo walidalik baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya fircoon jacala ummadiiba wuxuu ka dhigay maxay shiic kooxo kooxa markii laga dhigay muxuu sameeyay yastad'ifu ta'ifatan minhum baladi koox buu la baxay markaa maalin bar reer baa la tumaade ilaa dad wada tuntaadna lagu tumayaa yastad'ifu ta'ifatan minhum baladi koox kamida buu gumaystay laakiin maxaa uu ku gabagabay gumaysiga wuxuu gaarsiiyay baa ilaahay yiri xad uu maxay sameeyay yudabihu abnaahum wa yastahyi nisaahum bay u gaadhay waxay u ahaatay inuu qabiil ku xukumo inaanay ragna dhalin ee rag la laayo dumarkana in la daayo ay shaqaale noqdaan warar banu israa'iil ilaahi baa wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala innahu kana min al-mufsidin fir'aun wuxuu kamid ahaa kuwa fasaadka sameeyay baa ilaahay laakiin hadana aayaadka ku xiga ilaahay wuxuu leeyahay ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون إلهي وحليه سبحانه وتعالى أن وحان دوني إن كوغ الله يستبع إلهي كوين لكم على الذين استضعفوا في الأرض kuwii dhulka lagu gumaystay baan rabaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ku galadaysto maxaa ilaahay ku galadaystay ilaahay wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan ka dhigo a'imma kuwa wax xukuma ee a'immada hadda waa kooxda la gumaysanayo ayaa ilaahay yiri waxaan doonay inaan ka dhigo a'imma waxaan kaloo doonay inaan ka dhigo baa ilaahay yiri wanaj'aluhum alwarithin kuwa dhulka dhaxlay iyagu waxaan rabay baa ilaahay leeyahay wanumakkina lahum fil ard meel cidla inta la geeyo uun halka madax ka noqon maayaan dhulka la makansiinaya baa ilaahay iyaga saytaraynaya fircoonkan iyo kooxdana waa la jabinaya waxa kale ilaahay aayaadka ku siilay wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun waxa kale doonayay baa ilaahay inaan tusiyo fircoon iyo hamaan iyo ciidamadoodaba markii la duleynayay markii hore kibirka iyagu ma alla sheegay laakiin markii la jabinayay ma ciidanka alla sheegay
labadoodii ciidankoodaba baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala isku hadlaynayaan kooxdaana waxaan rabaa inaan tusiyo waxay iyagu ka feejignaayeen iyagu meesha yaan laydinka qaadin bay ka feejignaayeen kaana ilaahay wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan tusiyo idan waxaan leenahay dhacdo taariikheed oo hore qur-aanku wuu sugay ilaahay baana tilmaamay waa inay dhacdo innagana intaynu noolayna ilaahay baabayna tusay waxaa soo gaadheen ciidan la yidhaahdo red armiga oo la yidhahdo weligiiba dagaal kuma jabin russia weligeed dagaal kumay jabin baa la yidhi afghanistan ka hor owde red army meel uu galo uu ka soo noqday ma jirto laakiin ilaahay baa wuxuu ina tusayey niman qoryihii 1940yadii dagaalka lagu galay xabadkeliyaala lagu jabiyey ilaahay afqar bilaadillah meel aad dad u gaajaysani joogaan waayo iimaanku goormuu muuqda haddii inta raash iyo maraykana la isku diro mid la jabin lahaa wuxuun baad odhan lahayd dee kuwan baa kuwan ka kaara fiicnaa socankama maydan tidhaahdeen kuwan baa kuwan ka dayurad fiicnaa kuwan baa kuwan ka dabaabad fiicnaa ilaa waa laba xoogoo isgalay laakiin ilaahay wuxuu isgeliyey qolaan waxba haysan iyo nimankii dee satellaytyada cirka loo diro kuwa ugu waaweyn raashiya unbaa iska lahaa nimankii cirkaba wuxuu diran jiray iyabaa alla isgeliyey kooxaan waxba haysan markaasaa weliba la jebiyey raashiya idan kooxda kale inay jabtaana iyana taariikhda baciidku maaha ama hadda ha jabto ama berri dambe ha jabto waxaan leenahay waa jabayaan hadda odhan maayo waa si suurtagal berri iyana waa suurtagal yani maxaan odhan maayo markaa leeyahay waa maxay yani haybka ma hubo kuwan inay kuwii jebinayeen laakiin waxaan leeyahay way jabayaan rushiyaba 10 years ayaa la waayey sofiyeetkii weynaa oo ka soo hadhay yaroo raashiyan la yidhaahdo dunida dawarsataa oo qaxootigoodii dunida laga fadhi waayey saa soomaalida yurub oo dhan qaxootigu joogaan laakiin raashiyadii caynka ahayd hadday saan u dambaysay kuwa kalena inuu u dambaysaa wax fog maaha laakiin kuwa munhazimiinta sii jabay ayaa iyagu jooga halkii cigaal soomaalidu ka sheegaysay soomaalidu maxay yidhahdeen cigaal fulanimadiisa waxay ka gaadhay col horti jabayay bay gabadhiisii ku barooratay baa la yidhi goormaad dhimatay markii la yidhina wuxuu idhi adeer shalaan go'a caalam alislaami koox baa joogta shalaan go'a iyo cigaal u dhaamo cigaal shidaad yacni koox u dhaamo oo tiro badan baa runtii joogta caalam alislaami ma xoog la'a ma xoolo la'a ma dad la'a ma nuclear la'a xataa hadday nuclearka ka warramayaan wuxuu leeyahayba ma jirto laakiin col hortii jabayay baa jooga kuwana way faydmayaan wax sii fog maaha idan waxaan leenahay mustaqbal muuqda ayaa islaamka u soo socda laakiin idinka mid qurun baan idin leeyahay idinku hadiin beelinun baan idin weydiinaya yani islaamka ilaahay baa ballan qaaday inuu soo baxayo ilaahay baa ballan qaaday oo maxay leeyahay waman yartadid minkum can diini fasawfa ya'ti allahu biqawmin ilaahay baa wuxuu yidhi ninkii diintan isaga iskaga noqda ilaahay baa keenaya koox kaloo bedesha idan idinka kuwa la bedelo un ha noqonina idinka waa intaa laydinkala talinaya inaydan noqon un kuwa la bedelo islaamkana wuu soo baxaya ilaahay baana u ballan qaaday inuu soo baxayo diintanna way xoogaysanaysaa cid kasta oo caburisayna horey u caburin kari weyday imikana ma caburayso dunida oo dham inay caburisaaba isku tala gashay way sii faaftay uun intii la tumayay way kasii tiro badantay waxaan lagu dayinina ma jirto oo dunida lagu isticmaalin oo bini aadam si loo toorjar gareeyo aan loo toorjar garayni ma jirin waana iskaga mid waana dib u soo baxaysaa idan waxaan idinka idin weydiinaya waxa weeyaan caqiidadiina alwalaa walbaraa ee ah inaad ilaahay iyo inta jecel la jirtaa inaanay kaa lumin ilaahay iyo inta necab inaad necbaataana diintay ka mid tahay wax u dhexeeya gaalnimo iyo islaamnimana ma jirto wax u dhexeeya inuu qofku ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaado iyo kuwa jecel ee ilaahay fooda u dhiga dhulka iyo inaad nacdo ilaahay iyo rasuulkiisa inta necab inaad adna nacdo labada kooxood waxba uma dhaxeeyaan idan waxaan idinkula talinayaa umar caqiide beelina hadiin beelina islaamnimaduna way soo baxaysaa wallahu aclam billahi tawfiiq bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa fadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra